okay so solution wanaagsan dhammaan asxaabta for loop hadda ka baxnay for each ayada way ka fududahay sidii hore for each ayada kaama rabto starting point ending point waxaas dhan kaama rabto waa kind of waa fududahay arrayda waatana inaan noo wada daawac markaa rabno waxaa dhehaynaa bis for each aa dhehaynaa for each markaa dhahno waa furaynaa waxaan laga rabaa arrayda lagu wareegayo yaa waaye arrayda lagu wareegayo bis aa u sheegaysaa numberkeeda waxaa leedahay numbers la variableka kadib waxaa leenahay as alias aa u sameynay bis waxaa dhehaynaa tusaale ahaan as number oo kale okay macnaha kala fur waaye macnaha wuxuu sameynaa haddaaysa arkayseen number of I number of something ma dhihino hadda waxaa la leeyahay numberska ku wareeg kadibna number u bixi mid kasta macnaha wuxuu sameynaa 0 1 kan gooni u dhigaa 3 gooni u dhigaa 5 gooni u dhigaa waxaa leenahay marka numberka markaas amaraysa noo daawac waxaa leenahay echo out waxaa noo daawacdaa numberka markaas amaraysa bilaa tawfiiq howlihii dhan ma bale maraayo xisaab iyo adaa taqaanid meeshaan ku dhameynaa for now haddaa jeegarayso isla sidii ku soo baxaysa adoonan waxba bedelin okay haddaa rabto marka in nambarada si gooni lagu daawaco waxaa jira wax la concatenation meesha ugu fiican aan ku ogaa karno waa concatenation waxa waaye in laba tiro la isku dhajiyo ama laba number la isku xiro iyo wixii la mid ah string oo kale marka php marka la joogo concatenation waxa la isticmaalaa waxa yiraahdo dot aa la isticmaalaa marka laba shay isku xiris okay laba shay isku xir waxaan ka wada isku dhajin marka rabto waxaa rabaa marka numberka marka la daawaco in new line la dhaho marka waxaa jiro special character oo la /n oo loogu talagalay in lagu daawaco new line marka intaan waxay ku sameynay number 1 marka la daawaco new line oo dhameynaa line cusub furaa marka daadan dotkan ku darin wax ku shaqeynaa malaa cilada kugu soo bixi doonto marka waxaa dhigi doonaa dot oo ah labadooda inay isku xirmaan si online concatenation kala noqdo for now daa fiir si qurux badan oo daawici doonaa wuxuu dhigi doonaa 1 what the hell space ma dhahay okay why you do that so br taa isticmaalo html ki nice break point yaa isticmaala dhimala saa u jeedid 1 3 5 4 50 60 70 marka ma u baahnaba inaad sheegto numberka intuu ka bilaawda intuu ku dhamaadaa maba u baahnidba marka weygan way aad u fiican oo aad loo isticmaala iyadana haddaa u baahato marka for now aniga meelaha qaara ku isticmaali doonaa sessionski waxyaalaas markaa gaarno mar kale hataa ku celiyo numberka arrayga waa kana kadib waxaa u dhiibaysaa for each aa leedahay for each macnaha ku dul wareegto mid kasta waaye intee ku dul wareega marka arrayda u sheegaysaa kadibna arrayda wuu ka kol furaa wuxuu ka dhigaa variable kale u bixinaya number oo kale kadib numberkaasaa ka faa'iidaysanaysaa waa daawacanay ama database geynaysa ama hadaa xisaab kale ku sameynaysid waa adiga waxaa galayna marka while loop oo asigana very important insha allah nice intaas soo gogweynaa bye for now